السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaad saaxiibayaal. Casharka maanta wuxuu ku saabsan yahay sida lagu soo daro muuqaalada sound effects. Sound effects waxaa la dhahaa muuqaalada marka aad sameynayso codadka yarka ee muuqaalka ka dhigaya wax qurux badan ama mid soo jiidasho leh ayaa la dhahaa sound effects. Waa codad leh saameyn oo qofka daawadaha ah soo jiidanaya. Marka sida loo soo daro muuqaalada sound effects ayaan baraynaa. Marka horeysa kabka soo furanaysa kadibna waxaad taabanaysaa meesha ku qoran new project. markaad doorato waxaan soo qaadaynaa sawir ayaan library ku dejinaynaa sawir background ayaan soo gashanaynaa backgroundka cadaanka soo gashanaynaa kadib waxaynu sameynaynaa sound effects. tusaale waxaan qoraal ayaan halkan ku qoraynaa tusaale soo dhawaada waxaan qoraynaa soo dhawaada saaxiibayaal. bal aan daarno muuqaalka sidoo noqdo aan daarno hadda qaabkaas ayuu noqday wax dhaqaaqa ma laha wax sound effects ma marka waxaan sameynaa horta markaas waxaan ku daraynaa animation ku waa dhaqdhaqaaq qoraalka inuu dhaqdhaqaaqo waliba qaybta waxaan ku qoraynaa oo animation ku waxaan ku daraynaa qaybta loo yaqaano type writerka qaybtaas ku daraynaa oo xarxaaf loo qoray kadib markaan ku darno waxaan ku daraynaa yoolkeena ama hadafkeena maanta si loo soo daro sound effects. waxaa taabanaysa meesha ku qoran tahay audio kadib waxaa taabanaysa meesha ku qoran tahay sound effects ayaa taabanaysaa kadib qoraalkan sound ama cod ka turjumaarna inaan ku soo darno meesha halkan waxaan qoraynaa typing farta xarna inaan sida qofka wax qoraya amal ay u soo gasho ama u qormato waxaan qoraynaa typing kadib go aan dhahnaa kadib waxaan wax badan oo typing ayaa soo bixi laakiin waxaan ka rabnaa anaga in ku qoran tahay typing oo long ah kadib qoraalkan wuxuu noqonayaa qaabkan baldaawo qaabkaas qurux badan ayuu noo soo baxay qaybtan iska jarayna maadaama uu dheeryahay qaabkaas ayay noo soo baxay kaas ayaa xal sound effects. qofka daawadanaya oo muuqaalka ayuu soo jiidanaya oo inuu daawado ku qasbaya muuqaalkaas qaabkaas qurux badan ayaa sound effects lahaa. kan waa hadafka waa qaybta oo ah sida loo soo daro qoraal sound effects loo soo daro. bal aan aragno mid kale oo ah sawir aan soo gashanayna kadibna sound effects aan ku daraynaa tusaale sawirkan soo gashanayna sawirkan kadib waxaan ku daraynaa sound effects. sawirka qaabkaas oo yahay waxaan rabnaa sound effects aan ku darno marka horeysa animation ku daraynaa ayaan ku daraynaa marka horeysa kadibna sound effects aan ku daraynaa animationka waxaan dooraynaa midkan kana ku qoran tahay rock ay ku qoran tahay daawaynaa kadib qaabkaas ayuu noqday qaabkaas soo baa laakiin cad ma laha oo qurxinaya muuqaalka marka waxaan sameynaa waxaan ku daraynaa sound effect kadib sound effect taabo kadib waxaynu taabaynaa waxaan ku qoraynaa shan switch aan ku qoraynaa taabanayna kadib kanaan dooraynaa sound effects waxaa isticmaala youtuberada caanka tusaale muuqaalka hadda wuxuu noqday fiiri qoraalka cusub cadaan ku darna qurux badan kadibna sawirkaas qaabka ayuu noqday soo badiyo waa animation plus sound effects. muuqaalkii qaabkaas ayuu qurux badnaaday balan daarna mar kale qoraalkii wuxuu noqday qoraal qurux badan sidoo kale sawirka wuxuu leeyahay sound effects oo qurux badan. marka sound effects wax kasta oo aad u baahan tahay loo isticmaalaa oo intaasoo waxa ku jira sound effects qaab trending oo qaybka oo aadka loo isticmaalo qaybtan waa